أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا ذا قال هذا شيء أي الله نوشة إن مسلم أو صومالية لكن ماشي أجونا وحجري 40 كيلومتر وأبو قناي من أضيع الدادي ساكو قياس الدوري اللي حدا جر أركاس وياه جماعة هالكي كتير حقا يفضل كيما كيما محاولت ما دين ضدك مسلمين هنا سووا زيارة بس شيء وخرج كيان يقبل حيا بالمال والنفس وفيزا وطن كان لما هلا سيادكو هشين إلهي باب بحيا رزقك هدوي ما دالكن وادي من أما عزكو كالي بدلكو كالي محاد دونا سامينكم جماعة دي مسكيت كاسي جوغان لنا نرى عليهم دونين لأنه مسكيت حد ما تقابل حد معلومة كلنا صلاة دايدنا إلهي بأقبولي لكن مر هداد بري ما جوغتان واحدها واني مقبولي ذلك الصوماليا وركي سر باي صوماليا هي كاله صوماليا وركي سوالو سينا صوماليا اسلام نمدا نصعنا وموقته صوما افكا صومالي وحيسينيا هي نمري شو نوي ميد مالنتي دمبه وان سو دhoweynay nasiib jamaacada waxa la socda oday markii istuhudeen dadka Soomaalidu markii istuhudaan mid qaraabadiisa isgarteen markaas war markii hebel adiga la oran jiray ha maxaad ka shaqeysaa imika wadankan shaqo ayaa anaka noo dhiibanayay guri shaqo ma jirtee laakiin jaamacad baan dhigtaa oo dalkii markii la joogay nin jaamiciyaad ahayde aqoonta ku dhimanad biirsataa maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dawladood dariska ka dhaxayaan bartaa weey ilaaqa bayna duwal markaas uu ku yiri xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu limay salaadeedu waa galab marka xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma barataa markaas uu limay professorada jaamacadda inii dhiga xiriirka adiga ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanaan markaas lagu waxba ma darin baa lagu yiri xadiiska maadan maqalu nabigu leeyahay a'maaru ummati ma bayna 60 wa 70 cimr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri waa 76 inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo 60 jir baan ahay inteed si noolan doontaa buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab xiriirka adiga ilaahay naga dhaxayna waa daciif kuwan wax ku dhigana waxa tir xiriirka ma ba yaqaanaan sidee kula tahay buu ka yiri aw aqligaaga rushdigaaga هذا الكثير وبصير يا جماعة وتري لكن منكي habeenkii cishaay barkuu tukada gurigiisii buu tagay salaadii fajr isagoo alaabtii wato jamaacada u yimiday wuxuu yiri hadalkaad igu tiraada ma xalay ka saxan kari waayay hadalkaad xalay igu tiraadeen waan ka jiibsan kari waayay daaciga markuu ninku dad wanaagsan u raaco ummadda khayr u rajaynayo ummadda wanaagayga ka fikirayo hadalkiisa ilaahay wuxuu gelinayaa ta'thir saameyn buu hadalkaagu yeelanayaa hadab soo islaaxaya ummadan islaaxiga ka soo qayb qaadanaysa qaylada aan qayleyno ku badbaadaynayo inaan diinta ka wada shaqeyno wada niyooda insha Allah oo hadii laynaga dalbo inaan diinta u baxno aan baxayna wada istunfirtum فانفروا بالنبي لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أن